albaan idin sheegaya maama Soomaaliya jirta oo burburka soo baxday waxa la yiraahdaa qof xor ah baa xoreeya waxaan idin ka codsanayaa horta idinku xorooba oo maxaa ka horowdaan madaxweynahayaga wasiirkayaga reerkayaga nabadoonkayaga odagayaga guriga annaga leh ku horayaan waa guri magaalada xamar ka dhisan reer ilaahay leeyihiin guriga annaga leh baabuurka annaga leh war ma lihidina qof baa leh aan xorowno sagaashan iyo labadii xaaladda waa la garanayaa baan reerkayaga shirsan oo ismadiisu dhex fadhiyaan cid walba dhex fadhido waxaan idhi salaamu calaykum calaykum salaam anigu hil iyo ho midna idin kama rabo saqar baa guuxay odagu xoogaa buu leeyahay ma kirin baan radaa qaatana kore waxna tar karin meel hebla iyo meel hebla labada control u dhaxaya ba hadaan tolaa ira ciidankiinu jooga colayna joogo hadaan wax idin wadiistona qaalin geela siin kartaan iyadana gelin koran khasraa maxaad ii samayn kartaan binu aadanku wuxuu dad ku noqday oo dunu ku noqday oo wax ku wanaagsaday oo ku horumaray waa dad xoroobay ma ina xorowna ma rabtaan hadaa rabtaan ina xorowdaan waxa ka xorowdaan qabyaalad qabyaalada adin tilmaamaya sida uu eg tahay qabyaaladii waa qabyaal han dhintay raganimo dhimatay nolol dhimatay fikir dhintay qabyaaladii waa qabyaalina qiimo ma leh qadarin iyo qaayam ma leh qaynuun iyo xeerna ma leh qorshiyo qaab horukac ma leh wuxuu dad ku qaato ma leh qareenkii waa ibliis qofaan ka gelin qisaas adiga deyntaada qabin qudhiisu ku dira markaad kaga qaadid buu qoslaayo ka hara markaas aqoomiyo qamuyo ku waalata adoon waxba qaban karin qabyaaladii waa qabkaasi ka quuso ha quudarayn ilaah baa idinku dhaariyay aawadan waxaan maqlayay dhalinyarada taageersan nabad iyo nolol dhalinyarada taageersan dawladda dhalinyarada anugu marka waxa igu qodaan odaga taageersan nabad iyo nolol waxaan ku taageersanahay oo idin sheegaya waxaan ku taageersanahay wax qarsoon ma mas'uulkaaga madaxdaada inay xun tahay iyo inay fiican tahay waxa laga eegtaa muraayada cadowga muraayada cadowgu waa muraayad yaa farmaajo la diriraya ma Soomaaliba ma Sokeya farmaajo waxa la diriraya cadowga Soomaaliya waxa la diriraya Kenya dhinac bay hormuud u tahay Imaaraadna hormuud bay dhinac u tahay mid waliba maxay difaacanaysaa Imaaraad wuxuu difaacanayaa inaan Soomaaliya degin dekada Freeport laga samayn batroolkana la soo saarin hadii labada la sameeyo gacanka hormus waa xirmo sababtoo ah intaas oo kiiloomitir intii loo soconayay 3 habeen iyo 3 maalmood ugu yaraan maraakiibta waaweyn oo laba qardhaxdooda oo gantaalaha cadowgu dhinac walba ka saaran yihiin oo in Soomaaliya degan tahay baa laga maarmaya hadii halka laga maarmay Imaaraad maxaa u yaal intaas la diriraya waa inaan meesha nabad ka dhicin waa inaan batrool laga soo saarin waa inaan dekada Freeport laga sameyn kan Soomaaliga oo hor ordayana waa beeriqaate waa daba dhilif wuxuu istaahilaa sijeed in lagu toogto wallahi sharciga jaajuuska waxa way sijeed ma soo jeed waa soo sijeed in la toogto waxa uu ku nool yahay maanta waa qabyaalad ilaahay umar khaanti ka oo anu laba qabiili Kenya isticmaalkii shalay jarjaray dalka Soomaaliya baa fuushan waxay rabtaa Jubbaland horta NFD inay xalaalaysatay waa muuqataa waxay rabtaa Jubbaland inay ku dadho markay Jubbaland iyo NFD israacdo maxaa ku haray waxa weeye geelow
geedaha hoos u dhugo niman yahow anigu caaw run baa idiin sheegayaa anigu waxaan ku jiraa dadka soo jabay carruurtayda wiilasheedii gabdhahayguna way ila jabeen sababtoo waxaa u yar 17 jir baa u yar hadda jaacad dhigta jabku ku jiraa waxa badbaada iiga baahan waa kuwa dhaleen kuwa iyagu dhaleen in la badbaadiyo oo ay nabad helaan oo Soomaali helaan eeg tolweyne Soomaali la yiraahdo helaan waa dhaweyd baa waxa la aroosiyay gabarena shubaha maalinta guriga ka tagaysa waxay tiri hooyo reerku waa ka tagay anigu yaanahay moogta wallahi billah hooyada baa soo wacdo tiri gabadhaada waxa ma la sameyn maxaa dhacay maanta waxay weydiisay qoladeeda sanne adaa baray gabadhayduna waa saxan tahay innagaana ku ababinay aabbo ina shubaa tahay waxa leeyahay marka horta qof horaa xoreeye inteena hoolka ku jirta arrintu yay caadifad ina ka noqone mabdi'iyan aan u xorowno mabdi'iyan aan ugu dagaalano wanaag mabdi'iyan aan u nacno qurun iyo qabyaalad mabdi'iyan aan u nacno dabadhilifayn iyo laaluush waxaan sheegayaa anigu haddaan lacag rabo inaan urursado guryo qurux baan ku dhisto magaalada in badan baa oo keenay laamo hal hees oo aan sameeyo 50 kun baa lagu bariyay 50 kun ma ku siina hal hees sameey waxaan wallahi 50 milyan ma ku sameynayo aniga waxaan maskaxaydii muddo ay ka soo baxeen ma ba sameyn karo waxaan run ilaahayna ma sameyn karo nimay waxaan leeyahay u fiirsaday ilmaariyaal cadowgeenu yuu la dirirayaa war xildhibaanow cadowga Soomaaliya yuu la dirirayaa wiilow yuu la dirirayaa mutacallimo yuu la dirirayaa odayo cadowgeenu yuu la dirirayaa eeg farmaajo haddaanu dan wadin haddaanu dawladnimo dhisayn difaac qarannimo ku jirin dalkiiyo diintiiyo dadkaba haddaanu daacad u ahayn haddaanu dulmi diidanayn qabyaaladna dabar jarayn shisheeyuhu duul allow maxay ula dirirayaan ya maxay ugu diidayin dalkiisa inuu xukumo maxay ugu doodayaan kursiga jeeru ka dego danooga qabsoomi male dalka Soomaaliyeed baarlamaan arinta dareen waxayna dawadeedu tahay inaad doorataan mar kale horta hal mar rabtaan iyo cadow inuu jawaab baarlamaanow xildhibaanow haddaa rabti cadowgaagu inuu jabo qarankaaguna hagaago odaga mar kale soo celi sababtoo ah mar haddii cadowgu la dirirayo waa caddahay soo maaha dagaalkaas waa cadyahay ninkaabaa naga hortaagani waa horan meeshaas gacanta la gelinayn waa horan farataysan lahayn waa horan waxaan rabno ka samayn lahayn arrintu soo maaha umiyeenan damiir lahayn ya kulli ulo inoo soo qaada dhingada miran baarlamaanka inta isartaagnaana mid ka soo baxaya ma jiro haddayna soo daro sababtoo waa lana qabsanaya waana la googoynaya والله رجعنا ويا بالله يطلع بين واحد كلو صعن واحد صعن حد هو كجيران سوشيال ميديا يوقف أفكار كهله يا كجيران إنه جوجويان وجوجوستان برا قف كيجو إيران حبط كلفتان خاتم الله إنه وافجيو دلك إلهي هينو هرم مريو إلهي بقينا برعاه السمريو إلهي وناق يولا المدي وحقبت كهينة تصو إلهي وحانو كبريني هقان خير وبركيسن لين ما يعنو إن عدك اللي هليو سببتو وحكم وقته إن إلهي لا شقينيو سببتو أنت عدو صورتي ودبد إيو قداه oo aad marxanti ka tihiin oo ilaahay ka adkaysiiyay xoog iskaga ma dhicin awood rabbaajida insha Allah uu soo noqonayaa dalkuna waa degayaa abahay wuxuu ku ducayn jiray ilaahu cadawga aan ka maarano naga qabo midkaan ka maarmin ilaahu noo soo celiyo noo soo hanuuni waqti ya ilaahay cadawga aan ka maarano nagana maarahayna ka qabto
midkaanan ka maarmina quluubtiisa allaha soo dumo ilaahay baa qaalibul quluub ilaahay bogeena burcada isu maray ilaahay Soomaaliya oo dhan wanaag ha tus ilaahay kii xoogaa ka khaldan yihiin saxa ku soo rido allahumma salli ala muhammad ilaahuna hagaajiyadaan hagaajin karee farmaajo allah soo celiyo mar kale iyo mar kaleba allah soo celiyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.